maareeyaha dhanka amniga ee shirkadda Faafuri hakan eedin oo maanta warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha caalamiga ee Cad magaalada Muqdisho ayaa tilmaamay in terminalka cusub ee garoonka uu sameeysan yahay si lamid ah kuwa caalamka oo kale isla markaana uu howl waliba leeyahay masjid ay dadka ku tukadaan goobo dadka lagu baaro alaabaha ay wataan iyo shaashado ay kala socon karaan xilliyada uu duulimaadkooda baxayo Master Hakan ayaa Xuseen ee jirto horumar xagga duulimaadka ah isla markaana uu farqi weyn u dhaxeeyo sanadihii 2013 iyo 2014 taasi oo ku sheegay inay tahay talaabo horumar leh marka loo eego duulimaadyada garoonka ka bixi jiray. After we started to operate during the 2014 total flight numbers became 18,000. tan iyo intii aan hawl bilownay sanadkii 2014 waxaa totalka guud ee duulimaadka sanadkaas oo kaliya noqday 18498 kuwaas oo dhammaan ah duulimaad caalami ah oo bixitaan iyo manshaba isugu jira. hadda waxaa dhamaanaya bishii afraad ee sanadka waxaana duulimaadka uu marayaa 5528. sanadkii 2013 tirada guud ee rakaabka diyaaradaha heer caalami iyo heer guud waa 119 ay tiradaasi noqotay 439,879 waa farqiga istaatis ahaan ee u dhaxeeya labadaas sano. 439,879. Those showing the differences. maareeyaha dhanka amniga ee shirkadda Faafuri ayaa hoosta ka xariiqay in roobkii dhawaanka day caasimada ay saameyn ku yeesheen terminalka cusub haatan ay ku guuleysteen inay dib habeen ku sameeyaan meelihii uu roobka ka soo daay waxaana uu Xuseen xilligii ay soo gabagabeeyeen dhismaha terminalka aysan jirin hab ay ku ogaan kareen meelaha iminka biyuhu ay ka soo galeen. It was the last week we had a very heavy rain at least ay todobaadkii la soo dhaafay ka soo socday muddo 2 saac waxaana uu dhibaato u geystay saqafka sare ee dhismaha airportka laakiin waxa uu ahaa wax yar oo la dayactiri karay waana ogaanay meelaha saameynta roobka uu ku yeeshay waana dayactirnay dhibaatadaas hadda waan xalinay. areas already repaired. terminalka cusub ee garoonka Aadan Cadde oo dhismihiisu si rasmi ah u bilaabatay 1 Abriil sanadkii tagay laguna soo gabagabeeyay dhismihiisa wax ka yar sanad ayay bulshada Soomaaliyeed waxay aad ugu riyaaqeen qaab dhismeedka garoonka. Maxamed Macalin Xasan Waydka warbaahinta qaranka Muqdisho.